wafdigani oo horkacayay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk Soomaaliya ayaa waxa uu isugu jiray wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada kala ah Galmudug, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo dowlad goboleedka Hirshabelle oo marti loo yahay waxaana lagu wadaa maalinimada biri ah inuu shir uga furmo caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ee magaalada Jowhar. wafdiga ayaa magaalada Jowhar si diiran loogu soo dhaweeyay waxaana markii uu soo gaaray magaalada Jowhar khudbad soo dhaweyn u jeediyay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan. بعد سنة هذه أنا وفرح سنة إيمان تاني مارتي دولتي فدرال كأي دولة جوالدي وأنا إيمارتي ويهين من قبل كشبيلة هذا عاصمة الجوهر هرشبيلة إيمان تيجي أنا يسوع قارين هذه أنا مارتي وفرح سنة هاي بعد اللي أنا سود هذا قام فرق سود هذا هذه أنا وحنا هاي وحيرون قبل جرن وما أنت على كورنثين هذا لكن وقدرت وحول بوضعها wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Cadle ayaa asna dhankiisa madasha ka hadlay waxa uu sheegay in maalinimada biri ah oo shir ka furmayo magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle gobolka wadanka oo dhan la dhihi karo haday noqon lahayd dowlad goboleedyada ee haday noqon lahayd dowladda dhexe Soomaaliya isku duuban in aan galabta halkan ku soo dhaweeyna aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaana leenahay soo dhawaada insha Allah taala ku soo dhawaada magaaladiina. wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk Soomaaliya Cabdullaahi Faarax Weeliye ayaa asna dhankiisa sheegay inay Jowhar u yimaadeen maalinimada Britoola ah oo shir uga furmayo wasiiradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada kala ah Galmudug, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Hirshabelle. magaalada madaxdiisa Jowhar waxa waaye shir joogto ah ee 3 bilood kasta la qabto oo loo yaqaan shirka wadajir ee hanaanka qaran ee samaynta dawladaha hoose dib u yeegleelisa dawladaha hoose. shirkan wuxuu soo bilowday November 2015 waana madal ay ku midaysan yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha iyo kuwada dib u heshiisiinta iyo dastuurka ee maamul goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle oo dhawaan ku soo biirtay iyo sidoo kale maamulka hadda sameysmayo ee gobolka Banaadir. waxaan halkan u nimid sida wasiirku sheegay inaan ka qayb galno shir loogu talagalay inay ku wada hadlaan dowlad goboleedyada ka jira Soomaaliya iyo dowladda dhexe federaalka ah la yiraahdo wadajir khaasatan wasaaradahooda arrimaha gudaha oo uga wada hadlaan sidii ay u wada shaqayn lahaayeen sidii ay si guud wadanka wax ugu qaban lahaayeen. Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar.